السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن سيدابان كل رميكرنا قرآن كريم كا إيه أحاديث رسولك سؤال شاس وإنت بدن وحي كتب ماذا ضدك ملحدين تا إيه أن الله يرسولك رميسنين وهي كليهن سيدا قرآن كل رميسي لا قرآن كان وحو سود دقي أديك عن إفك إيمان خيضا أنا حتى لا أروسين سيدا كأكتا قرآن كان أو صح يهي sida hadda koor yar aan la dooday oo gaal ah oo igu yiri su'aashaas waxaan ku dhahay quraanka inuu sax yahay waxaan ku rumeeyay waxaan soo qabanaa 10 aayadood ee quraanka ah adigana waxaan dhahay soo qabo 10 jabtar oo bible-ka ah waxaan dhahay was dhinac dhigaynaa aayad walba waxa ay ka hadlayso intaan aan akhri la tagin adduunkan aan ku tusaa si sax ah oo ka hadlayso aan ku waafajinaa ee bible-ka waxaan waxa uu ka hadlaayo iwaafaji iyo adduunka iswaafaji lama keeni karo maxaa yeelay bible-kan adduunka ilaahay ugu matalagalay adduunka ilaahay wuxuu ugu talagalay kitaab quraan sidaad ogtiin walaalayaal baabuurka markii oo la soo saaro mesela China ama Japan baas ka dhahno mugo baabuurka soo saaro baabuurka waxaa la socdo buug yar ee ku dhahay baabuurkan saas oo isticmaal inta biyo uga shub inta saliid uga shub baabuurkan hadduu 5 sano ama 6 sano socdo waxaan ku sameey service ku sameey yani birtiisa baabuurtan magacaan ay leedahay macluumaadka dhan baabuurkan waxa kala soo kartaa buugan markii baabuurka ku timaado cilad ee aad u geyso mechanic ko wuxuu ku weydiinaa buuga baabuurka ma sheegin hadii lugaha wax ka yihiin waa okay laakiin sida kale hadii baabuurka cilad dab waxa ku timaado wuxuu ku leeyahay baabuurka buugiisa ken muga isma waafaqayso hadii adiga maskaxdaada ay isticmaasho ee aad tiraaho aniga nimaan ahay baabuurka nima soo sameey ama gabadha soo sameeyay ana gabadhan ahay meeshii lagu yiri uga shub ooliyada aad uga shubto caana booro meeshii lagu yiri uga shub shidaalku waa qaal bariyahan aad uga shubto hadii lagu yahay caana geel ma socoyso isma waafaqayso baabuurka inuu shaqeeyna u badan tahay muga waxa ku rumayno quraanka koow waa horta sidan quraanku hadii uu yahay 7,000 aayadood taqriiban 1,000 aayad ama 500 aayad waxay ka hadlayaan dhahno janno iyo naar iyo qiyaamo iyo xurul cayn noloshaas anaka wali ma gaarin xagga naga dhig adduunkana dhaga weynahay adduunkan aayad walba aad soo qabato quraanka ee aad macnayso wax ay ku tusay waxa maanta lagu sugan yahay mesela cunuga xaqiiqadeeda ay ku tusinay cunugu marka uu calool galo waxa la yiri ko wuxuu naqanaa hadii ala ku roon yahay biyo kadib wuxuu isku bedelaa xinjir kadib wuxuu isku bedelaa cad yar kadib waxa lagu afuufaa naftaas ayaa waxa la leeyahay malaga qor qofkan ma laba ma dhidiga goor ma u dhimaha hadii ala ku roon yahay wuxuu cun lahay wuxuu cabi lahay minuu janna galay minuu naar galay waxa soo dhan haminkaas la qoray muga qofka waxaad ku leedahay kaalay kitaabka quraanka uu kala fur aayada soo akhri aayadaas waxay sheegay qofku markuu calool galo marxalada uu marayo aayada kale hadana waxay sheegay hadana markuu cunugu dhasho akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'a waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun hadana cunugu markuu dhasho wax maqlin wax arkin noloshiisa dhan ay tahay daakum ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yeelay maqal arag qalbi oo wax ku kala fahmo cunugu waxa leeyahay mugo 2 bilood gaaro hooyaday aabba kala yaqaana mugo 3 ama 4 gaarana qofka qaraabada la ah iyo qofka ka xageeya waa kala yaqaana mugo 7 bil 6 bil gaarana cabsi iyo farxad iyo waxa dhan waa kala sheegi kare waliba ka hor la sheegay inta badan muga Allah asaas ku hadeeyay ee cunugu markoo wadaalo ku reeyay oo wax meel cunto lugta isku xogi ma cunugu wuxuu isku xogaa gacanta inuu isku xogo jaamacada ugu soo bixin cunugan oo hadda waliba wuxuu ku jira dherebti hadii ala ku reeyay ugu soo bixin dugsi sare qof barta ma jirto oo hooyo aaba la moor cunugan wali waxa waaye wax maqli ma waxna arki ma waxa waaye wax ku jira bili ugu horeeyay laakiin cunugu mugo meel cunto inuu gacanta isku xogo rabbi subhanahu wa ta'ala qaal rabbuna alladhi a'da kull shay'in khalqah thumma hada ma inahay ilaahay subhanahu wa ta'ala abuuray ayaa ku hadiyay
in gacanta la isku xogo. Okay, badaraa u soo taagtay, badarka muga u soo taagtay cunugu lugta la aadima wuxuu la aadaa gacanta. In gacanta lala aadiya u sheeg weliba ilmaha muslimiinta iyo weliba kuwa hadda gaalada muga yaryihiin ba iyaga xataa muslimiin waayo diin islaami ku dhasheen kabacdi ay dhinac kala mari karaan waxay la aadaan gacanta midigta. yaa u sheeg gacanta midigta in lagu cuno yaa u sheeg rabbi subxaana watacaala ayaa ku hadiyay maynohe ka kadib haddana qofku magoo weynaado oo waxbarasho iyo haddii alla ku roon yahay nolol raadsado iyo shaqo qofaa faqiir naqanayo qofaa taajir naqanayo qofaa dhadhaxaad naqanayo haddii alla ku roon yahay qofaa dheeraanayo qofaa gaabanayo ilaah subxaana watacaala wuxuu leeyahay fadala bacdakum calaa bacdin aayadda qur-aanka waxay ahayd انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات موجود هذا قف وحون غنى قف تاجرة قف لحظات حضر الله سبحانه وتعالى عياكو هذه إن ساستك كان أي نقدان ما أنا عديقة بقول الله أركي والله باتي أنفرت على الشغاء وتاغن أن شلن بالشلن إسقار فيكرن هيركا قفت أركي أن قلوا كبحن شنتيت الصلاة قلوا سكدوا كده مثلا كيسو كدوا كده حد قالوا كورون هاي cibaadadiisa ilaashado haddana kaa nolol fiican mujeda haddana kaa nolol fiican ee haddii alla ku roon yahay noloshiisa qabowda rabbi subxaana watacaala ayaa ku hadiyay maynohe muga waxaad leedahay qofka aayadda qur-aanka haddii qofku yiraaho maalan waxaan saasay naqanayaan matal aan kasoo qaadno maalan qofa wuxuu ku yiri waxaan saasay naqanayaan ama wuxuu ku yiri biri roobaa da-ayo roobkiyaa biri da-ay wuxuu ku yiri haddana adiga haddii alla ku roon yahay saasaad u aali doontaa sidii uu kuu sheegay qofkii aad u tiilay wuxuu ku yiri dabeecadaada saasay naqon doontaa sidii aad naqatay 10 mar oo isku xigto wuxuu ku yiri saas iyo saas isaan sidii saxay naqatay qofkaas maxaad leedahay wallahi qofkan waa runlow ma leeyahay sidoo ka waran allah subxaana watacaala 7,000 aayadood iyo 124 xadiis حديث القدسي يعطي هذا الحديث عادي أنا محمد كسقناتي بقول كيف بقول سوافق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى النبي صلى الله عليه وسلم سيدا أسيغا أور روا وحوم الدهين سيدا أسيغا إيلات تهانا كما هذاقين بل الله سبحانه وتعالى أيا وحو الدرايي سيجنال ويفي موبيل كوارتين مي ويفي كم يقولوا وحرو internetku kugu xiran yahay maynohe muga allah subxaana watacaala ayaa wuxuu ku xiray nabi maxamed wifi oo wax asiga uu rabo uusan ku hadaaqi karin in huwa ilaa waxyun yuuxaa callamahu shadiidu lquwa mujeda muga walaalayaal inaan lagu mashquulin in aan diinta lagaa fidnayn inaadan naqan qof haadhaadayo haddii 2 xaraf loo sheego fudud inuu dhaco waxaa kaaga xiran tahay horta kow inaad barato diinta way aad u tahay muslim way sababta aad muslim u nahay waxaan kaliya ka ognahay in hooyo aabe ay muslim ahaayeen sheekh muslim la isku nikaaxiyey bay'ad islaam ah aanu ku dhalanay bis intayna badan saas ayaan u badannahay intaasna kuma filno intaas ma ku filno wallahi intaas waxay kugu filan tahay markii aad ku nooshahay bay'ad islaam oo aan lagu tashwiishinayn laakiin dadkana ku nool qurbaha laga yaabo in maalintii su'aalo kala gedisan ay ku yimaadeen qof mulxid ah ayaad waxaad la wadaagay waxbarasho qof mulxid ah ayaad waxaad la wadaagay shaqo qof mulxid ah ayaad waxaad la wadaagay haddii alla ku roon yahay nolol hooso guriga wada deganaa kartiin waxaad wada deganaa kartiin haddii alla ku roon yahay hotel yani qofkan wuxuu isku dayaa horta inuu ku rido waayo qofkan waxaa laga dhaadhacsiiyey diinta uu haysto ee baybalka ah ama waxay rabta ahaatee inay sax u tahay adigana waxaa lagu yiri islaamaa tahay laakiin sababta islaamka aad ku tahay lagaama dhaadhicin muga in lagaa dhaadhiciyo inaad barato waxaa ku xiran in aad beri isdifaaci karto waayo beri haddii lagu liqliqo lagu rido waxaad naqee shakhsi caga ku taagan oo aan la nuuxi karin mujeda baabuurka waa aragteen haddii luga barafka si wadamada aan joogno luga baraf iyo waxaan kala leenahay iyo luga kuleylo meesha waqtiga oo kuleylka jirana luga lagu xiraa
waqtiga uu jiro barafkana waxaa lagu xiraa luga kaloo gooni ah oo masmaar iyo waxa leh waqtiga barafka jiray haddii aad ku baxdo lugihii kulaylka loogu talagalay baabuurkaas waxay u badan tahay inuuna shaqada ku geyn oo ku rido ama waddada aad ka baxdo maxaa yeele looguma talagelin bulgaha aad wadato ama waa bulug ganaaxaaga mugga adigan qof muslim ahaa tahay inaad laa ilaaha ila allah muxamedin cabdu wa rasuulu bis aad iska haysato sax ma ahan wayo xadiisku waatuu leeyahay buniya alislaamu calaa khamsa islaamka waxaa lagu dhisay shantaas tiiro islaamka masalan haddii guriga aan la dhiso elela guriga ha la bilaabo injineeraa yimiday fundiyaa yimiday waxaa meeshaan ha laga dhiso 4 qol iyo jiko iyo musqul iyo garaash baabuur iyo howlahaas okay qoladii waxaa timiday oo aas-aaska guriga ku shaqada laheeday aas-aaska gurigay taageen waa inay timaado haddana qoladii kale oo ku xigi laheeday guriga saqafka kora saari laheeday waa inay timaado haddana qoladii kale nalalka haddii ala kuleeyahay biyaha haddii ala kuleeyahay albaabada haddii ala kuleeyahay meesha kobaha la surto wahaakada qoladii ku shaqaleeday waa inay timaado haddana ka waran haddii qoladan horo aas-aaska kaliya dhisay ay tagto aad tiraahdo ciddi soo baxa guriga waa dhisay aan degne gurigaas ma dhisan yahay waa maya gurigaas ma dhisno muga inaad ashahaadato uun xajka aado haddii alla kuron yahay soonto salaado sakayso minaad ilaahay maalku siiyo kali ah kuma filna islaamka intaas kaliya ma ku filno intaas waa bilowga horo waxaa kuu dhiman nalalkii waxaa kuu dhiman haddii alla kuron yahay dirbiyadii waxaa kuu dhiman wixii dhamaa kuu dhiman mugga insha allahu tacaala waxaan isku boorinaynaa horta kow inaan horta barno diinta horta marka labaad inaan dadka ugu yeerno oo ileen waxa markaad haysato markay kuu saxan yihiin oo aad ku qanacdo ayaa dadka loogu yeeraa haddii aad dukaan tagto dukaankan baabuur raqiisa kasoo hesho meesha baabuurta lagu gado baabuur la gedi jiray $10,000 lasoo raqiisay leeyahay baabuurka maanta waxaa la gadaa $2,000 qof kasta ee aad taqaano ee aad leedahay qofkan waa qofkii kuugu dhow waa u yeeray arkaalay baabuur soo raqiisi arkaalay ala jaansa jire mugga inaan horta dadka diinta ugu yeerno oo dadka horta aan barna diinta inay sax noo tahay kadibna ayaga aan ku dhiirigelino diinta inay qaataan hadday diidaan dhib ma lahan laa tahdii man axbabta walaakin allah yahdii man yashaa haba kula dhasho ama haba ku dhale adiga haddii ay hidaayadii ilaahay aysan qofkan boos ku haysan adiga maku riixi kartid laakiin qofka bar isku day inaad dadkan ka dhaadhiciso rabbi subxaanahu watacaala ayaan ka baryaynaa inuu diinta nagu sugo ilaahay subxaanahu watacaala ayaan ka baryaynaa in uu na hadiyeeyo rabbi hanaga oofsada adduunka haddii uu arko ama maslaxadeenna ayaan ku jirin waayo adduunkan waxba ma ahan waa inaan ku ducaysano ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب